بسم الله الحمد لله ثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن شعبك الصوماليات ومدة الصوماليات وحنا maanta inaan la wadaagno hawlgallo cusub oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xoogga kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ay fuliyeen shalay xalay iyo maantay gobolka Galguduud waxaa shalay ka bilowday hawlgallo xooggan oo maalmahan loo diyaar garoobayay waxaana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan cutubiyada danab iyo xoogga kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ay la wareegeen deegaanadan tuulooyinkan iyo degmooyinkan ciidanku muddo hal saac ka hor waxay la wareegeen deegaanka Wabxo oo ah magaalo weyn oo ballaaran oo ilaa xalay hawlgalku ka socday oo miina baaris lagu waday cadawgana laakiin markii hore banaanka magaalada lagu soo jabiyay xalay tusaqdii dhexe ciidanka iyo cutubiyada hubaysan ee kacdoonka shacabku waxay la wareegeen tuulada la yiraahdo Warxoolo oo isla iyaduna deegaankaas shalay galabtii 5tii galabnimo waxay la wareegeen Waragabille waa tuulo iyo deegaano iyo ceelal dadku aad u degan yahay shalay duhurkii labadii duhurnimo waxay la wareegeen wara dhuuma leh waa deegaano tuulo ah oo ceel biyoodyo leh oo dadku ay degan yihiin isla shalayna ceel Goraf oo iyaduna tuulo yar ah ayay la wareegeen dhulkaas aan ii sheegayaa wuxuu dhammaantiis waa gobolka Galguduud ee dawlad goboleedka Galmudug wuxuu u dhaxeeyaa ceel Buur Guraceel iyo tuulada Bukur ee ka tirsan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ugu yaraan waa 250 kiiloomitir oo dhinac kasta ah deegaan ballaaran oo tuulooyin ceelal laga cabo waro iyo dhul daaqsimeed bale iyo beeraley dhul beerada ciidanku hawlgalkaas uu shalayto sameeyay wixii khasaare ah oo dambe dib baan kaga soo sheegi doonaa laakiin hadda waxaan inii soo hormarinay in guulahaas faraha badan la gaaray